meeting a blind date يعني لكلنك شكانسي إندولا شكانسي إندولا محلا ودا لكلنك شكانسي أنا إندولا أما شكانسي إندولا شكانسي إندولا محلا ودا أرضي بانها يو أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا المقال كنا مانتا مقال كنا نحكي سؤالي هني قيب تدحض حوها هاي يعني asking for a date قبل شو كان سكذب بني سمرك قيبي شو كان سيعمل كوجرنا مركي يلا يابين سو مركي فضلا دي أي تهاي مركي وريث صوب قون السنة كان سبسكرايب نوصار ده ثرنا بوجهتنا عادي هذا ما حسنت هاي مركي فيديو شهر دي كنا فين فضلا حنفعل سنة إنا صوت ده وصل اوكي marka qaybta afraad waxa weeyaan meeting a blind date yani la kulanka shukaansi indhoolo maxaa laga wadaa la kulanka shukaansi aan indho lahayn ama shukaansi indhoolo maxaa laga wadaa shukaan indhoolo waxaa la wadaa qof aad aqoonin oo aad hal mar isku soo duldhacdeen oo aad hadlaysa arkaysaa marka aan isla eegno cashirka waxa weeyaan waa wiilka B waxa weeyaan gabadha marka wiilka magaciisa waxa la yiraahdaa Robin sidalkan ka muuqataba Robin gabadha magaceeda waxa la yiraahdaa Mia okay wiilku wuxuu yiri marka hi Mia haye Mia hi how are you Mia haye Mia sorry wuxuu yiri hi are you Mia haye adiga Mia loo raraa magacaaga Mia isku ekaatay Mia ayaa la raraa Mia magacaaga B wuxuu yiri gabadha waxay tiri I am Mia anigu magacaygu waa Mia sax you must be Robin adiga magacaaga Robin tahay ay la tahay tiri kale wadada suugaya umalaya marka waxay tiri gabadha I mean wiilku wuxuu yiri yes that's me kaasi waa aniga Robin waa aniga okay B waxay tiri gabadha that's so good taasi aad iyo aad ay u fiican tahay to finally meet you ugu dambeyntii hadii aan kula kulmay aad u fiican tahay tiri marka marlaada ku xigtay hadalku waxay tiri Karen has told me so much about you Karen gabadha la yiraahdo ayaa aad iyo aad wax badan ay ku saabsan ay ii sheegtay tiri okay wiilku wuxuu yiri I hope that she had good things to say about me waxay la tahay inay wax fiican ay sheegaysay ninka uu iska soo yahay dabcan I hope that she had good things to say about me waxay la tahay inay wax fiican leh wanaag la iga sheegaysay ayuu yiri B waxay tiri gabadha she had only good things to say wax fiican ama wax wanaagsan un bay ka sheegaysay and did you have trouble finding me يعني raadinta aniga soo raadisay ku dhibaatootay trouble waxa la dhibaato okay waxay tiri wuxuu yiri wiilka well wanaag how many beautiful women meeqa haween oo qurxan how many beautiful women meeqa dumar oo qurxan in a red dress by the fountain are there gabdho qurxan oo wata dhar yani guduudan by the fountain are there marka fountain waxa la yiraahdaa meel ila oo biyo burqinaysa marka gabadhu uu fanfaanaa wuxuu yiri meeqa dumar oo qurxan oo sidii yani ishaas amal ayaa halkan joogta sida isha burqinaysa amal u eegay halkan jooga marka inana way ayuu u faaniyay way marka ayadu waxay tiri B thank you way faantay la faaninayo thank you mahadsanid for the compliment yani waxaad sheegtay arintaad iga sheegtay waad ku mahadsan tahay wiilku wuxuu yiri so would you like to go will you like to go to get a bite to eat Mia jacasha inaad wax soo cunto yani get a bite waxa la horta bite waxa laga keenay qaninya to eat waxa la cunaa markaad English si fiican baratid ayaad isticmaali kartaa markaa okay
hadda taa laakiin waa caadi haddii adigoo si fiican u aqrinta inaad isticmaasho marka wuxuu yidhi so will you like to get a bite to eat Mia ma jeceshahay waxaad soo cunto Mia gabadheeda waa magaceeda weeyaan gabadha waxay tidhi that sounds perfect arrintaas aad iyo aad ay u wanaagsan tahay arrin aad iyo aad fiican ayay la tahay lead the way hayahay hor qabo ama hor soco insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa inaad casharkan wax ka faa'iideen marka casharkan waxaan ugu talagalay in laga barto Englishka marka waxaad u isticmaalay qof aad saaxiibtiin oo kaliya marka gabar walba yaa loo isticmaal insha Allah tabaaraka wa tacaala assalamu alaykum wa rahmatullahi tacaala wa barakatuh أرضي بانها يو أرضي بانها يو وبحي ودنك